Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wax wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. Qodobada warka subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay war cusub ka soo saartay xaaladda cakiran ee Soomaaliya. Puntland oo amaro cusub ku soo rogtay masaajidyada ku yaala deegaanadaasi. Hay'adda culimada Soomaaliyeed oo ka digtay hurinta colaado sokeeye. Dad ka badan 100 qof ayaa ku geeriyooday dooni ku rogmatay badda Mediterranean-ka. Waa wararka dibadda. Weerar boolis ah oo ka dhacay dalka Faransiiska iyo isbitaalada ku yaala caasimadda India ee New Delhi oo gabi ahaanba ka dhamaadeen oksijiinadii. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka? xaqiiq miyaa rabtaa mise been? xaqiiq ayaan raadinayaa. haddaba Radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. waa hagaaga dhageystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhageystayaal. waa subaxnimo sabti ah, taariikhdu waxa ay ku aadan tahay dhageystayaal 12 bisha sagaalaad ee Ramadaan 1442. dhanka kalena waa 24 bisha afraad ee Abriil sanada 2021. intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoona warkayga subaxnimo. haatan u diyaar garooba dhageystayaal dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa muujiyay sida qotada dheer ayagoo walaacsan yihiin sii socoshada jahwareerka siyaasadeed iyo khilaafka u dhaxeeya hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya ee ku aadan qaabka doorashada loo qabanayo. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ay dib u mulacsadeen horumarka baaxadda leh ee laga sameeyay 10kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya, taasi oo ay ka mid tahay dadaalkii lagu bixiyay amniga, dimuqraadiyadda, isbeddelka siyaasadda iyo horumarka dhaqaalaha, gaar ahaan cafinta deymaha. xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in heshiis laga gaaro uu muhiim u yahay hanaan kasta oo doorasho oo guuleysta. bayaanka ayaa intaasi lagu daray in heshiiskii 17kii September uu weli yahay gundhiga kaliya ee wada taageersan yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada kala duwan ee siyaasadda inay diidaan wax walba oo rabshado iyo iska hor imaad keeni kara, isla markaana wada xaajoodyada sida ugu dhaqsiyaha badan dib markaasi lagu cusboonaysiiyo iyadoo aan wax shuruuda lagu xirin. qaramada midoobay ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay ka gacan siiso Soomaaliya. golaha ammaanka ayaa waxay sidoo kale ay ka bogaadiyeen go'aankii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. xubnaha golaha ammaanku ee qaramada midoobay waxay carabka ku adkeeyeen in khilaafka taagan ee ku saabsan qaabka doorashada uusan kaliya minjaxaabinaynin horumarka iyo dadaalada la sameeyay, balse sidoo kale uu isha ka weecinayo dhibaatooyinka culayska leh sida fatahaadaha, abaaraha, ayaxa, dhibaatada COVID-19 iyo la dagaalanka nabadiidka Al-Shabaab. bayaanka oo ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ugu dambeyntii mar kale lagu cadeeyay in qaramada midoobay ay xushmeynayso madax banaanida siyaasadeed, midda dhuleed iyo weliba midnimada Soomaaliya. hadalka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ahayd ee golaha nabadda iyo ammaanka ee midowga Afrika ay cambaareeyeen muddo kordhintii ay golaha shacabka u sameeyeen madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isla markaana ay ku baaqeen in wada xaajoodyada dib loogu laabto. dhinaca kale, wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Puntland oo ku sugan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ayaa masaajidyada faray in la raaco habraacyadii wasaaradda caafimaadka ee Puntland ay hore u soo saartay. wasiirka ayaa maamulada masaajidyada faray in la raaco habraacyadii ay wasaaradda caafimaadku soo saartay ee la xiriira ka hortagga cudurka safmareenka ah ee COVID-19, isla markaana deegaanada maamulkaasi cudurka uu ku sii faafayo. wasiir jaamac faarax ayaa
sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in la qaato tallaalka laga heli karo xarumaha caafimaadka ee Qardho si looga hortago faafidda xanuunkaasi oo mid aan dawo lahayn. wuxuu sidoo kale sheegay in markaasi ka wasaarad ahaan ay sii wadi doonaan wacyigelinta bulshada si looga hortago faafistaanka isla markaana tallaabooyin dheeri ah ay dawladdu u qaado. hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa shacabka iyo siyaasiyiinta uga digtay in laga fogaado horinta colaad sokeeye. gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ka digay fidnada iyo horinta colaad sokeeye. Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ugu baaqay shacabka iyo siyaasiyiinta inay ka qayb qaataan nabadgelyada iyo horumarka dalka ayna ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara iska horimaad bulsho. halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. markan wararka dibadda intaanan u guda gelin waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha ee warka subax waxaana la diyaaraa Cabdirasaaq Ali Cabdulle. aad baad u mahadsan tahay Kamaal Keena. dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Everton ayaa 3 dhibcood ka heshay kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates kadib markii ay kaga soo adkaatay Eber Hall ciyaartan oo ka tirsaneyd kulamada horyaalka Premier League. qaybtii hore ciyaarta ayaa labada kooxood Arsenal iyo Everton ay ku kala nasteen barbaro Eber ah. qaybtii labaad ee dheesha markii dib laisku soo laabtay ayaa labada dhinac waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo sameeyay fursado badan oo gool loo filan karay. daqiiqadii 76aad kooxda Everton ayaa hoggaanka u qabatay kadib markii gool uu iska dhaliyay goolhayaha naadiga Arsenal. ciyaarta ayaa sidaasi ku noqotay 1-1. ugu dambeyntii dhegeystayaal ciyaarta oo ahayd mid aad u adag ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 1-1 ay kaga soo adkaatay Everton. kooxda Arsenal ay ku booqatay garoonka Emirates. Arsenal ayaa haatan ku jirta dhanka jadwalka horyaalka booska 9aad halka Everton ay fadhiso kaalinta 8aad. xubinta ciyaaraha warka waa naga intaa aan dib idinku celiyo qeybaha warka ka dhiman. markan wararka dibadda booliska Faransiiska ayaa baaritaano ku wada shil ay ku sheegeen weerar argagixiso kadib markii gabar boolis ah oo toore lagu dilay meel ka baxsan magaalada Paris. weerarkan ayaa ka dhacay degmo 60 kiiloomitir dhanka koonfureed ee kaga beegan caasimadda Faransiiska ee Paris waxaana gabadhaasi oo ahayd 49 jir lagu dilay goob aanan ka fogeyn saldhig booliiska ayaa dhinaca kale toogtay nin 36 jir ahaa oo asal ahaan ka soo jeeday dalka Tunisia oo lagu tuhunsanaa inuu weerarkaasi uu ka dambeeyay. ugu dambeyntii 6 isbitaal oo ku yaala caasimadda India ee Delhi ayaa waxaa gebi ahaanba ka dhamaaday oksijiinkii iyadoo dhaqaatiirtu ay sheegeen in isbitaallo kale ay qarka u saaran yihiin in oksijiintu ay ka dhamaato. dad badan ayaa dhintay intii ay sugayeen in oksijiin lala soo gaaro halka in ka badan 99% ay buuxsameen sariiraha daryeelka xaaladaha degdega ah ee isbitaalada New Delhi. India ayaa la daalaa dhacaysa mowjada labaad oo caabuqa COVID-19 waxaana la diiwaangeliyay rikoorkii ugu badnaa oo kiisas cusub oo caalamka oo idila. dalkaasi ayaa diiwaangeliyay ku dhawaad 16 milyan oo caabuqyo la xaqiijiyay. 24 saac ee ugu dambeeyay waxaa dalkaasi laga diiwaangeliyay 314,835 qof oo kiisas ah oo cusub halka dhimashaduna ay sare uga kacday 2,104. waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in mas'uuliyiinta gobolkaasi ay joojinayaan haamaha oksijiinka ee loo gudbiyo gobolada kale sida uu TV-ga gobolka ee New Delhi uu u sheegay NDTV.
warkiisu waxaad kala socoteen dhegaystayaal idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland xilligani waa nageynta